sideenna inaan aragno waan ku faraxne hoosleetii bebe malgudhi waa batahay kaa codsanayna inaad noo saarto shanalka subiskare muuqaalkana aad la egsaarto waxaan weliba kugu ducaynaynaa ilaahay adigana khayr ha ku siiyo oo barakoowi liibaan baan ku leenahay sidaad noogu soo beertay waxaan kuu soo gudbinaynaa muuqaalo argagax badan muuqaalo yaab badan muuqaalo dad badan oo soomaaliyeed aanay weli arag oo degdega waxaynu barnaamijkeena maanta si toosa ugu daafuraynaa waynu falanqaynaynaa weliba fanaanada caanka ee farxiya fiska oo kaga oohisay qiso yaab badan oo xanuun badan gabadhaada fanaanka weyn ee caan baxaya dayax dalnuushe ee reer muqdisho xaaskiisa iyo weliba iyadoo ay wehelinayso fanaanada caanka ee kale ee faadima hilowle oo ah fanaanad inagu qaaliya ayaynu bartan barnaamijkeena maanta si toosa falanqayntiisa ugu bilaabanaa iyo warbixin xaqiiqooyin dhaba ku salaysan haddaba sidaynu ognahay farxiya fiska waxaa magaalada muqdisho ugu dambeysay muddo aada u dheer oo laga shugo ilaa 21 sannadood ku dhowaad inkastoo ay heeso badan u soo qaaday xilliyo kala duwanaa oo ay magaaladaasi soo martay intaa markaynu halkan kaga soo leexano waa maxay sababta ay la oyday xaaska dayax dalnuushe ee fanaanada farxiya kabayare markii ay ku jirtay showgii weynaa ee laysku arkay ee magaalada muqdisho ka dhacay maalmihii ina soo dhaafay sideenna inaan aragno waan ku faraxne hoosleetii bebe malgudhi waa batahay ayaanu bartan warbixinteena ku soo falanqaynaynaa maanta haddaba sidaynu ognahay farxiya fiska iyo faadimo hilowle oo halkaa ku lahaa muqdisho showga ciid ee loogu talagalay inay dadka aadka u faraxsan ay farxadooda la qaybsadaan oo weliba dhalinyaro aada u fara badan oo reer muqdisho oo aada u xiisaya fanka ay halkaa kaga qayb galeen oo aanu inaga qarsoonayn showgaas sidii ugu dhacay ee weliba la ysku wada arkay ee dhalinyarada faraha badan ee xiisaysa heesaha muusigiisa oo ay laba dhacaan uu ka mid ahaa dayax dalnuushe iyo fanaaniin kale sida farxiya fiska faadimo hilowle iyo weliba qaar kaloo fara badan oo caana haddaba waxaa kasoo qayb galay showga heerka caalami ahaa fanaanada farxiya kabayare ee ay dhigayeen iyo faadimiina dayax dalnuushe iyo xaashiyadiisa oo iswehelinaya oo halkaa weliba aada loogu soo dhaweeyey waa sababta ka dambeysa in aada loo jecel yahay labada lamaane waa dadka soomaal labada lamaane ee ugu asturan markayna eegno xagga fanaaniinta ee aynaan arkayn xataa haddii lasoo shafo oo lasoo dhigdhigo meelaha kuwa aan waxaas waxba ka noqon oo afku daboolaan oo waa dahaba intaa haddaynu kaga soo gudubno haddaba aynu gallo qisada ka oohisay gabadha farxiya ee dayax dalnuushe hees ay u qaadaysay farxiya fiska oo bilaa muusig ahayd ayaa ay ku soo dhaweeyeen ood ka dareemayso inay muddo dheer farxiya ay ka maqlay dalkeeda hooyo oo muddo badan kadib dalkoo nabad noqday oo lagu caanamaalay ay dib ugu soo noqotay iyadiyo weliba faadimo hilowle oo iyaduna waqti hore dalka ugu dambeysay haddii aynaan halkanba aynaan garanayn waqti hore ugu yaraan meelaha 30 sannadood kolley way ku dhadhowaanaysaa sidoo kale haddaba fanaanka caan baxay ee dayax dalnuushe ayaa isaguna aada ugula dhacay sida quruxda badan ay ugu dhiirigeliyeen in farxadda ay sii noolaato weligeed oo udub dhexaadkuna uu sii taagnaado lamaanaha qarniga ee dayax dalnuushe iyo xaaskiisa weliba haddaynu in yar halkaa ka gallo lamaanayaasha aadka isugu faraxsan ee soomaaliyeed ayay ka mid yihiin ee aan weligood la odhan waxa aan odhan karnaa waa lamaano dadku shacaylka ay isu qabaan uu kasii badan yahay shacaylka dadka kale ee taageeraa weliba ay u qabaan sida aan ku soo akhristay meel ka mid a dadka taageera ayaa qayb falanqayn ah oo ah kuwa falanqeeya wax kaga dhiibtay oo weliba uu ugu soo jawaabay fanaanka dayax dalnuushe in yar haddii aanu halkaa ka taabanno
oo ay leedahay gabadhaasi waxaan ku riyooday dayaxow weligay waxba kuumaan soo qorin ee waxaan ku riyooday adiga oo ay laba mataan ah kuu dhasheen waxaan leenahay ilaahay aadna ha ku rimeeya riyada haddaba haddeen qisadan yaabka badan u gallo ee ka oohisiisay gabadha dayax darnooshe ayaa noqonaysa sida quruxda badan ay ugu soo dhoweeyeen iyo kala gacaylka ay u qabaan Farxiyo Fiska iyo weliba Faadimo Hilowle inkastoo ay Farxiyo Fiska heesta lahayd haddana wada shir ayay u soo dhoweeyeen iyagoo garbaha ka taagan runtii haddii aynu ku sii dhaadhacno si toosa u sii gudagalaba lamaanayaashan qarniga ee dayax darnooshe iyo xaaskiisa ayaa noqonaya lamaanayaal dadku ay u taageeraan wadaafaha dunida dadjowga ku kala nool ee Soomaaliyeed ay aad u jecel yihiin waanan jecelnay annaguna waayo waa lamaanayaal u dhiirigeliya dadka kana qayb qaata dadka taakuraysan runtii dayax darnooshe waa fanaan caan ah oo Soomaaliyeed keliya maaha fanaan waa caawiye weyn oo ka qayb qaata dadka tabaaraysan inuu garab weyn siiyo haddii aynu halkaa in yar kaga noqono maalinkii ciidda dadka ka soo qaxay xagga ee dalalka carabta ka soo qaxay ayuu ka mid ahaa dadkii caawinayay oo uu ciidsiinayay aruurahooda isagoo weliba baraha bulshada ku soo faafiyey taasaan xaqiiqo ahayn iyo weliba dadka agoomaha ee Soomaaliyeed caruuraha ay ku kala nool magaalada Muqdisho iyo weliba hareeraheeda isagoo halkaa qaybo badan kala qayb qaatay inuu gaarsiiyo deeqa aad u fara badan runtii waa fanaan ma odhan karno balse waxa weeye caawiye weyna qayb uu ka yahay waanu shaqaysanayaa ashar wanaagsan haddaba arrintaas iyo qisooyinka isku daba duugduugan ayaynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadanaynay waxaan ku leenahay muuqaalka sii sheergare adiga oo weliba subscribe-na noo saaraya barta aynu ku leenahay Xaqsoor TV ee YouTube oo weliba aan markasta kugu soo gudbino warar xaqiiqooyin iyo qisooyin yaab badan haddii aan dib ugu noqono showga Farxiyo Fiska iyo Faadimo Hilowlena wuxuu u dhacay Faadimina aan idhaahnay wuxuu u dhacay si aan hore loo arag oo ka duwan showyada fanaaniintii hore ay qaban jireen kaas oo kaga duwanaa inay dhalinyarta magaalada Muqdisho ay uga soo qayb galeen showgii habeenka halkaana la isku arkay runtii masraxu ayuu u buuxay waana fanaaniin loo taageersan yahay haddaba waxaan ku leenahay sii sheergalee muuqaalka adigoo weliba laygana saaraya si uu u gaadho dad badan